dhibaato badan ayuu leeyahay isticmaalka kaniinigan waxaa kaloo barbar socda dhibaatooyinka nafsiyan dadka uu geysan karayo. dhalinyaro badan ayaa laga yaabaa inay u adeegsadaan iyaga oo doonaya in ay kordhiyaan awooddooda dhanka galmada ah. laakiin maxay tahay dhibaatooyinka ka dhalan kara isticmaalka kaniiniga feegada iyo howlgabka kacsiga? mawduuceennan ayaan kaga hadlaynaa dhibaatooyinka kaniinigan uu leeyahay iyo sidoo kale howlgabka kacsiga. feegada ama VIAGRA waa kaniini dabciya murqaha sarana u qaada qulqulka dhiigga ee xubinta ragga. VIAGRaha waxaa lagu daaweeyaa kacsi la'aanta sida dhallinyarada ay aaminsan yihiin. VIAGRaha waxaa kaloo lagu daaweeyaa xaalado kale oo caafimaad. dhakhtarka wuxuu tala ahaan soo jeedinayaa sidan: ha qaadan VIAGRa haddii aad qabto wadna xanuun ama aad qaadato daawada loo yaqaano nitritis. waxa uu ku keeni karayaa faalij, dhiigkar ama wadnaha oo istaaga. weligaa hal mar ka badan ha qaadanin maalintii daawadan. VIAGRaha waxaa kaloo uu lumin karaa aragtida maadaama uu socodka dhiigga ee indhaha uu aad u yareeyo. VIAGRaha wuxuu u daran yahay dadka qaba kaadi macaanka, kolestaroolka sarreeya ama dhiigkarka dadka qaba. inta aadan qaadan VIAGRaha kala tasha dhakhtar ama u sheeg dhibaatooyinka aad qabto oo dhici karta inuu halis ay ku tahay daawadan. xanuunada in lagaa baaraa ay muhiim tahayna waxaa ka mid ah dhiigkarka, sokorowga, howlgabka wadnaha, beer xanuunka, kelya xanuunka, dhibaatooyinka dhiigbaxa, gastriga ama gaaska iyo indhacaadka. haddii aad qaadatid daawadan xilliga galmada waxaa dhici karta inaad dareento wareer, lalabo, xanuun, kaboobyo ama kabaabiyo ama xadxato feeraha iyo gacmaha ah. haddii aad isku aragto calaamadahaasi fadlan jooji daawada dhakhtarkaadana la tasho. haddii aad isku aragto guux dhegaha ah, wadna garaac, madax xanuun, xasuus lumin, suuxdin, fadlan jooji isticmaalka daawadaasi. waxaan farriinan u dirayaa dadka dhallinyarada ah ay qaata daawadan iyaga oo aysan jirin baahi caafimaad oo ay qabaan. waxayna qaarkood ay qaataan iyaga oo aaminsan inay ragannimada ay kordhinayso ama ay hawshiisii uu laba jibaarmayo. laakiin dhibaatooyinka kale aad ka dhexli kartid daawadan ayaa aad u badan. daawadan waxay ka mid tahay daawooyinka aad looga ganacsado, waxaana la sheegaa in 60% daawada suuqyada taalla ay feeg ama been abuur ay tahay. waxaa aad loogu iibgeeyaa waddan kasta iyadoo aan loo sharxin qofka dhibaatooyinka ugu imaan karaya. haddaba adigoo og dhibaatooyinka uu kugu keeni kara kaniinigan mustaqbalkaada, ka fakar inaad isticmaasho mar walba oo aad joogto aad ka dhigato. markan waxaan eegaynaa howlgabka kacsiga. dhibaatada kacsiga oo iyadana loo yaqaano howlgabka kacsiga waxay ku timaadaa 5% ilaa 10 nimanka ay da'dooda ay tahay 40aadka. da'duna si kala duwan ayay ugu korortaa. dhibaatada howlgabka kacsiga inta badan waa dhibaato siyaabooyin kala duwan ku timaada. cudurkan waxaa ka mid ah oo kale howlgabka kacsiga hordhaca galmada, hase yeeshee aanan sii wadi karaynin arrintan muddo aad u galmoonayso. wuxuu ku bilowdaa isaga oo ku xidhan dareen. markii ay xididada yaryarka ah ee xubinta ninka ee qulqulka dhiigga ay soo galaanna waa ay fidaa. xubinta galmada ninka waa ay weynaataa, laakiin haddii ay xididada dhiiggu ay dhiigga ka saaraan xubintaasi waa ay soo ururtaa. markii xubintaasi ay istaagtana waa ay weynaataa oo waa ay dheeraataa. cudurkan howlgabka kacsiga waxa uu ku yimaadaa iyada oo qulqulka dhiiggu ay soo gaarin ama uusan joogtoobin, kadibna aad is aragta in aadan kacsan karin oo muddo yar oo keliya aad kacsato. arrintan oo la dareemo muddo gaaban ama dhowr jeer lama odhan karo waa howlgab kacsi. taasina waxay badanaa la xidhiirtaa nafsiyaadka iyo dareenka uu qofku uu ku sugan yahay markaas, mana aan xaalad daawo loo raadiyo. ereyga howlgabka kacsiga waxaa loo isticmaalaa dadka aanan marnaba awoodin inay kacsadaan. inta badanna xaaladdan waxaa sabab u ah cudurro jireedka. da'du shardi uma ahan inay keento cudurkan howlgabka ah. cudurkan howlgabka ah wuxuu caadi ahaan uu ka yimaadaa dadka qaba kaadi macaanka, wadna xanuunka, dhiigkarka, cudurrada neerfaha iyo sidoo kale nimanka qalliinka lagaga sameeyey dhibaato kaga timid qanjirka brostateka. kaniiniga jirka biyaha ka saara iyo daawada loo qaata dhiigkarka, daawada suuxdinta, daawada isku buuqa iyo stresska ayaa sidoo kale qaybo ka ah arrintan. daaweynta cudurkaani waxay keenaysaa inay ugu yaraan in adiga iyo dhakhtarkuba isla baartaan, islana caddaysaan in adiga iyo qofka aad la nooshahay ay wax dhibaato ah ay ka jiraan dhanka nolosha marka loo eego, taasoo sabab u noqon karta awooddan kaa maqan ama dhibaatada aad ka sheeganayso. waxaa muhiima inaad joojiso isticmaalka khamriga, qaadka ama jaadka iyo sigaarka oo keeni karaya howlgabkan. wadahadalkaasi kadib waa in dhakhtarku baaraa inaad ka sheeganayso cudur aan lagaa daaweyn. daawada ugu wanaagsan ee lagu daaweeyo cudurkan baa ah maadada kooxda BDE5 joojiso. daawooyinkaasi waxay xoojinayaan qulqulka dhiigga xubinta ragga
iyaga oo laga helayo dhaqdhaqaaq ama joogto uu u noqonayo. daawooyinkaasi wax badan kuma kala duwana dhinaca waxtarkooda. waxa ay shaqaynayaan muddo 4 ilaa 5 saacadooda ama 24 saacadood halkii mar. aad bay muhiim u tahay in hoos laga xariiqo in daawadu ay waxtar leedahay oo keliya xilliga galmada. dadka qaarkii kaniiniyadu waxba uma taraan. waa inaad daawada qaadataa ilaa 1 saac inta aadan u tegin xaaskaada. waa in dhakhtarka aad kala tashataa xaddiga aad ka qaadanaysid iyo waxyeelada laga filan karayo. laakiin daawadan waxaa isticmaali karaya qofka si rasmi ah loo xaqiijiyey in howlgab uu ka yahay dhanka dareemaha. ma qaadan kartid kaniiniyaasha haddii aad qaadato daawada loo isticmaalo wadna xanuunka. waa caadi inaysan daawadu si xooga aysan wax u tarin 6 ilaa 8 mar ee ugu horraysa. waxaa laga yaabaa inay sabab u noqoto in xaddiga aad u baahan tahay in la kordhiyo. ma isticmaali karta daawada in ka badan 1 mar maalintii. dhibaatada ay daawada keeni kartaa waa mid iska fudud ama iska gudbaysa, waxaana ka mid ah madax xanuun, weji casaad iyo caloosha oo ku xanuunta. waxa aad u wanaagsan inaad samayso buug maalmeed aad ku qorayso waayo aragnimadaada kuugu horraysa ee isticmaalka daawadan. dhakhtarku wuxuu kuuga caawin karaa in uu ku siiyo talooyin wanaagsan marka aad la kulmayso arrintan. waxaana waajib ah inaad mar walba aad raacdo nidaamka daawada laguu siiyo. dhakhtarkaadu wuxuu kuu raadin karaa caawimaad daawada ah haddii aad tijaabisay inaad kaniiniyaasha ay fiican yihiin, islamarkaana aad qabto cudur kale oo aan ka ahayn tusaale ahaan kaadi macaan. waxaan filayaa in labada mawduuc ee ku saabsanaa dhibaatada kaniiniga feegada iyo howlgabka kacsiga inaad wax badan aad ka ogaateen. dhallinyaro badan ayaa inta badan waxay si gaar ah ayla soo xiriiraan qaybta gmail-kayga ee ah falanqayntube@gmail.com iyaga oo ii soo diraya canaawiin kala duwan oo ay doonayaan inaan baaritaanna ku samayno. ku dhowaad 18 ka mid ah dhallinyarada igu xihan ayaana doortay inaan baaritaan ku sameeyo cinwaankan. waxaan warbixintan ka soo xigta barta caafimaadka ee Soomaali Doctor oo inta badan aan ka soo xigto barnaamijyada dhanka caafimaadka la xiriira. haddii ay tahay markii kugu horreysay qaybta hoose aragtidaada iigu reeb. waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalada kala duwan ee aan halkan ku soo bandhigo. aragtiyada kala duwan ee dhiirigelinta ayaa kugu keeni karaya inaad samayso baaritaanno dadka waxa ay jecel yihiin. arrimaha sirdoonka ayaan ugu badan dadka waxa ay daneeyaan. waxaana mar walba ku dadaali doonaa mawaadiic dadka ay wax ka faa'iidaysan doonaan insha Allah. mahadsanid. kulanti wacan daawade waa mar kale iyo muuqaal kale ku soo dhowo barteeda YouTube-ka. haddii aad ku cusub tahay subscribe si aad u hesho warbixinno aad wax badan ka faa'iidi doontid. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa cunooyinka ragga u roon. dad badan ayaa isweydiin kara waxyaabaha cunooyinkaas ay yihiin, balse muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa. waa muhiim inaad ogaato waxyaabaha loo yaqaano howlgabka kacsiga in qofka oo ragga ah noloshiisa mar un ay soo marto. waxaa kaloo muhiim ah inaad ogaato inay arrintan ay ku meel gaare u soo marto ragga iyadoo ay ku xiran tahay xaaladda nafsiyadeed ay ku jiraan. waxaa lagu qiyaasaa dhibka ugu weyn ee keena arrintan inay tahay diiqadda ama walwalka ama isfaham la'aanta ama isku xumaanshaha lamaanaha soo kala dhex gasha. arrintan oo aad ka sii walwashid waxay adkayn kartaa xalka iyada oo arrintan aad u aragto wax weyn ay dhibaato kugu keeni karto. taas waxa ay sii daahin kartaa inaad noloshaada caadiga ah aad ku soo laabatid. mar kasta in daawo lagu degdego sax ma ahan. waxaa jira su'aalo dad badan ay isweydiinayaan, ma jiraan cunooyin ama waxyaabo dabiici ah oo looga maarmi karo adeegsiga daawada VIAGRA loo yaqaano oo la sheegay dhibaatooyin badan inay keento. maadaama arrintan ay rag badan ay ka sheegtaan, waxaa jira shirkado badan oo ku howlan sidii ay dadkaas uga xayuubsan lahaayeen qarash iyaga oo been abuur iyo daawooyin aan jirin ka gada. waxay shirkadaha qaar ay sameeyaan inay gadaan geeda daaweedyo ama waxyaabo dabiici ah oo ay ku sheegaan sida malabka oo VIAGRA beddelkiisa la qaadan karo. markii la baarayna waxaa dib lagu ogaaday in daawada VIAGRA ay ku soo daraan. waxaana warbixintan aad ka ogaan kartaa in malabka hadda ka hor laga digay in loo suuq keenayo wadamada geeska Afrika iyada oo daawooyin badan lagu soo daray aadna dhalinyarada ay ugu daateen, laakiin dhibaatooyin badan ay kala kulmeen. sidaas daraadeed waxaa wanaagsan qofka inuu taxadar muujiyo mar walba oo aanan laga dhaadhicin wax warshad soo maray in lagu dhigo inay dabiici yihiin. dadku waxay sheegaan cunooyin badan oo kala duwan inay u roon tahay xagga raganimada. waxyaabaha Soomaalida isla dhex marto waxaa ka mid ah hilibka ama subaga qubada, basasha, kalluunka, malabka iyo waxyaabo kale oo badan. laakiin arrimahaas maxaa ka jira? warbixintan ayaan ku eegaynaa. waxaan rabaa inaan halkan idinkugu soo gudbiyo waxyaabaha dabiiciga ah oo cilmi baaris badan lagu sameeyey.
maadadan waxay muhiim u tahay xagga raganimada waxaa laga helaa cunooyinka qaar waxayna ay jirka ku kordhisaa maadada loo yaqaano nitric oxide taas oo ballaariso xididada arooriyaasha ee xubinta ragga si qulqulka ugu bato sidaas oo ayna awood ay ugu yeelato waxaa jira dhowr cilmi baaris oo lagu sameeya maadadan kulligeedna isku waafaqeen in isbeddel la taaban kara laga dareemay cuntooyinka maadadan ay aadka ugu jirto waxaa ka mid a hilibka libaax badeedka kalluunka tuunada loo yaqaano yuumbiga qubada aargoosatada sisinta lowska waambaha cabitaanka jokaleedka kulal oo aan sokor lagu darin iyo qudaarta afakaadhada loo yaqaan tani waa maadada jirka uu ku sameeyo hormoonka ragga oo aad muhiim ugu ah xagga raganimada iyada oo daawo ahaana loo qaato ayay jirtaa laakiin waa in dhakhtar uu kuu qoro qof kastaa la iskama siin karo cunooyinka kobciyo hormoonka waxaa ka mid ah qumbaha buunshada qamadiga iyo xayawaan badeedka loo yaqaano shurib oo af soomaaliga lagu yidhaahdo halley waa geed daaweed laga helo dhulka aasiya qaas ahaana waddamada kuuriya waxayna cilmi baarayaashu ay sheegeen in sida maadada kor aan kusoo xusnay ee argayn loo yaqaano ay u shaqayso raggana ee aad waxtar ugu leedahay waxaa muhiima haddii aad isticmaalayso daawadan inaad dhakhtarkaada aad kala tashato maxaa yeelay wuxuu hoos u dhigaa tayada daawooyinka qofka kale uu qaadanayo waa casiir ama biyaha laga miiro midhaha rumaanka loo yaqaano casiirkan waxaa loo yaqaanaa inuu caafimaadka wadnaha u roon yahay cadaadiska dhiiggana uu aad u yareeyo cilmi baaris la daabacay sanadkii 2007 waxaa lagu ogaaday inuu leeyahay faa'iidooyin xagga raganimada waana casiirka ragga da'da ah u roon dhinacyo badan markii laga fiiriyey waa geed ka baxo waddamada galbeedka afrika waana geed aad loo isticmaali jiray intii aan viagraha suuqa uusan qabsan waxaa laga sameeyaa kaniiniga loo yaqaano yuminbine oo ah sida viagrada mid loo isticmaalo shirkadaha sameeya daawooyinka kiimikada sida viagraha ayaa dadaal aad u culus waxay u galeen geedkan in la joojiyo sidoo kalena suuqa gabi ahaantiisba laga saaro iyaga oo sheegaya xilliga in dhibaatooyin xagga caafimaadka ah laga dhexlayo laakiin dadka ku nool waddamada galbeedka afrika aad ayay u isticmaalaan caalamkase lagama ogola in aad loo isticmaalo sababtoo ah lagama yaqaan waa geed cowska oo kale ah oo ka baxa dalka China baaritaano kadib waxaa la ogaaday inuu leeyahay maado la dhaho icrin oo u shaqaysa sida viagraha oo kale dalka Shiinaha aad ayaa looga isticmaalaa waxayna dhaqaatiirta Shiinaha sheegaan inuu viagraha uusan ka yareysan waxyeello side effect inuusan lahayn tala guud qof walba waxa wanaagsan inuu ku dadaalo waxyaabaha soo socda si uu caafimaad dhaqso ah oo jinsi ahaan u helo 1 ku dadaal inaad cunto caafimaad leh oo aanan la warshadayn 2 jooji isticmaalka sigaarka khaadka iyo khamriga 3 sameey jimicsi joogto ah 4 walwalka ama diiqada iska yaree ugu dambeynna ku dadaal inaad hesho hurdo aad kugu filan intaas waa inta ugu muhiimsan oo qof waliba uu sameyn karo sida uu uga fogaado dhibkan waxaan ku soo gabagabeynayaa haddii la helo lamaane isjecel oo isfahansan oo wixii cillad jira wadaagana inaysan waxba dhibaato ah aysan soo gaareen taas oo aan burburinaynin aasaaska gurigooda sababta aan saa u leeyahay waxay tahay dhibka ugu badan ee qoysaska Soomaaliyeed oo aysan ogeyn ayaa ah in arrintaani u baahan tahay wadaagis iyo sidoo kale isla wadis oo xalka uusan ahaynin kaliya hal qof dhankiisa wax ka yimaada haddii labada dhinac xal loo helin waxba ma hagaagayaan waxaan filayaa inaad wax badan ka